الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا في الجنة. أخواني في الله maanta waxaan joognaa madrasadeen oo u baahan masaajid. Qolalka waxaa noo dhisay dad muslimiinta ka mid ah, galaaseed waa noo dhisan yihiin. Waxaan rabnaa masaajid oo ardaydii ku tukato oo lagu tarbiyeeyo qaabkii loo tukun lahaa, qaabkii loo ibaadaysan lahaa, iyo waqtiyaalka qaarkood imtixaanka arday laga qaado. masaajidkaas ayaa naga maqan. muslimiinta caalamka waxaa ka codsanaynaa in masaajidkaas nagu caawiyaan. maweelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskiis wuxuu ku leeyahay man banaa masjidan lillaah, qofkii dhiso masaajid oo ilaahay dartiis u dhiso, bana allaahu baytan fi ljanna. ya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa guri ugu dhisayaa jannada. waxaan leenahay muslimiinta qofkii ilaahay awooddaas gaarsiiyey oo dadka maanta ku deega karaan in dadkan walaalahooda ah oo aad u tabaalaysan oo u baahan maanta gargaarkaasna gargaar muslimiinta dhan haddii sameeyaan ajar weyn ka helayaan uu yahay, ayaa ka codsanaynaa in madrasadaas noo caawiyaan masaajid. madrasadaas waxay ku kooban tahay ilaa dhowr galaas. hadda meesha u jeedin oo gadaalkay ah waa meel oo barxad ah oo wax lagu dhuso la garan laayahay, oo ardaydii haddii ku dhul hati kuleeda busteed iyo dhabkeeda iska fara badan. khamiista markii la gaaro waxaan rabaa imtixaan in laga qaado ardayda. maqaroofanka iyo wixii dhan dad muslimiinta qaar ka mid ayaa noo keeneen, waa haysanaa. waxaa naga maqan markaan masaajid dhul ballaaran waa u haynaa. waxaan ka codsanaynaa markaan jamaacada muslimiinta meelba joogaan in uga caawiyaan masaajidkaas oo lagu tarbiyeeyo ardaydaas oo madrasada maanta ilaa 12 saac laga bilaabo ilaa maqribka sii joogayaan. markaan waxaa la rabaa meeshii ku tukun lahaayeen duhur, casar, maqrib, cisha. hadda waxaa kasii daran jamaacada xaafadda masaajid ma haystaan, masaajid ka fog ba aadayaan. masaajidkaas rabnaa markaan jamaacada gaararka degan ku tukadaan, ardaydana lagu caawiyo, lagu tababaro. khamiista iyo waqtiga qaarna ilaahay karoon lagu tarbiyeeyo ayaa u baahanahay. waxaa ka codsanaynaa muslimiin meelba joogaan in masaajidkaas nagu caawiyaan oo ilaahay dartiis nagu caawiyaan oo ajarkan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam saan u sheegayna ka faa'iidaystaan. maweelay masaajidaha ilaahay waxaa kor u qaado muslimiinta mu'miniinta ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala aydiis wuxuu ku leeyahay innamaa yacmuru masaajid allah, masaajidaha ilaahay waxaa camiro oo dhiso oo hagaajiyo qofkii ilaahay iyo rasuulkiis rumeeyeen. markaan rasuulkaan calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa waa maqasheen, qofkii hal masaajid dhiso oo ilaahay dartiis u dhisona ilaahay wuxuu u diyaarinayaa gurikaas ka khayr badan jannada dhexda ilaahay uu dhisayaa. muslimiinta waxaan leenahay caawintaas ayaa ka codsanaynaa in nagu caawiyaan meel kasta joogaan, dal iyo dibadda meel kasta joogaan. waa meel caawin u baahan. saan idinka arkaysin koley waa xaafadda ku dhex jirna, xaafad iska barakaysan. waa meesha joogana waa buuro bakt, dadkeeda ma awoodaan. madrasada arkaysiin dad muslimiin ah ba dhiseen, qaar kamida 2 galaas ba noo dhiseen. jazaakum allahu khayran baan leenahay. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiiskiis wuxuu ku leeyahay ibni aadanka camalkiis wuu ba'ayaa ilaa 3 shay maahan. 3daas shay wuxuu yidhi rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sadaqatin jaariya, sadaqa jaariya qofkii sameeyo sida madrasooyinka oo kale ama masaajidaha oo kale qofkii dhiso sadaqa jaariya ama geed laalo ama eel qodo, qofkaas kaase sadaqa jaariya u ahaanaysa ilaa maalinta qiyaam ajarkiisa uu soconaya.
haddii dadkii madrasada dhisaan ama masaajid dhisaan ilaa masaajidkaas qofkii muslimiin ku tukado dhan ajarkooda u soconaya ilaa maalinta qiyaam laga gaaray kan labaad qofkii ilaahay fahansiyay cilmigiisa oo hatana dadka sii bari oo cilmun yuntafic bi rasuulka calayhi salaatu wasalaam cilmigaas kaasay oo lagu intifaacay si oo quraanka macalinka dadka sii bari isina ajarkiisu u soconaya kan saddexaad waladun saalihun yad'uu lah qofkii ilaahay caruur siiyay caruurtii ilaahay u hagaajiyay oo u tarbiyay diinta ku hagaajiyina ajarkiisu u soconaya marka waxa leenahay muslimiinta abaalkaas fara badan in nicmadaas fara badan ayaa ka halaysiin annagana gargaar badan baa maxadda idin celinayna nagu caawiya madrasadaas waxay u baahan tahay masaajid yay u baahan tahay galaas ilaahay baa noo fududeeyay dad muslimiin kamid ah baa noo dhiseen alxamdulillah dan waxa ka codsanaynaa in noo dhisaan masaajid oo ku tukadaan muslimiinta gaararka degan iyo ardayda maalin kasta ku tukadaan ayaa ka codsanaynaa jazaakumullahu khayran wabillahi tawfiiq macalinka madrasada ku wareejinaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله تعالى شيخ سيدي أو شيء واي مركا وحانا هاي معلنكي مدرسة عيالكي وحالا عن هين الحمد لله مساجد الآن مركا ماشي أن كنت كوني ودرتين وميل مولعة مركا إن شاء الله تعالى وعن كرمنا مسلمين ماشي أي جوغان دمان inay noo dhisaan masaajid waxaa way madrasadii khayr Allah si muslimiin ay noo dhiseen sida sheekhan uu sheegay marka anaka waxaan haysanin masaajid insha Allah dad waxa iska nahay oo tabaruulay ah meesha aan joogno waa meel qaxooti ah waa tabarteeda waa iska laciif marka hatta waad u jeedin sidii hadda ay naga tahay mawlaca dhismihiis uu yahay waad arkaysiin dhammaan waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meesha joogaan inay noo dhisaan masaajid ardayda ay noogu tukadaan dadka dariska ay ku tukadaan dhammaan waxay albalog dhastiis xataa malaha masaajid uu ku yaryahay meel dheer baan u aadnaa ardayda markii casharadii la siiyo oo salaada la aqama waxay u baxayaan meel dheer oo fog marka insha Allah ta'ala muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan masaajid aan baan nahay meel cidlaan iska joognaa alxamdulillah waa meel oo duur oo hatta maartay masaajid aan lahayn mawlac yar hadda aan ku tukunahaynaa mawlac naftiis hatta waa naga dumay marka insha Allah ta'ala aniga waxaan ahay macallinkii oo madrasada marka insha Allah ta'ala muslimiinta meesha joogan waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan masaajid kuwan waa ardayda meesha tuuran intaan waa intii ardayda ay dhashay weeyaa marka insha Allah ta'ala waxaan rabnaa in la masaajidka noo dhiso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولا لياسيل إذن شيء waxaan rabnaa haddii la yidhahdo meeshaan masaajidka oo laga rabo oo hadda muuqaalkiisa aan u taagnahay inaan samayno meeshaan gadaashayna waa mawlaca layidhi meel aan bacana lahayn waxba aan saarneen oo dhowr sano ka hor la dhisay aan u malaynayo marka haddii la yidhaahdo sida laydin sheegay waaye muslimiintana waxaa layidhi waxaa waaye waa hal jira isla leeyihin macnaha qofka haddii wax xanuun joogan kalena uu la xanuunsanaysay rasuulka sheegay sala allahu calayhi wasalam waxay isla yihiin dhista haddii qaar la furo qaarka kale iidana waxaa laga yaabaa inay dunto marka qayb muslimiinta ka mid ah ayaa meeshan hadda aan arkayno ku tukada marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa oo meeshaas ku imaanay inay masaajidkaas caalamka dadkii muslimiinta meelay joogaan aan ogeysiino meeshaan oo gaar ahaan waxaa waaye meesha dhagaxley meesha la yidhahdo buulo bakti iyo buulo barwaaqi magayaal badan ay leedahay marka insha allahu tacaala sidii laydin sheega waaye marka muslimiintana waxay iskugu kaalmeeyaan macnaha wanaagga وتعاونوا على البر والتقوى اسكو كالمي لير وناغ iyo cabsida ha isku kaalmeenin waxyaalaha dambiga iyo maanaha qolaytan cudwaan maanaha oo waayaha kala fogaanshada keeno marka insha Allah ta'ala waxa la isku kaalmeen ay kama tahay diintana maanaha qofka waxa la yiri khayrku wuxuu ka qaataa meel alla meesha uu ka helo waxaan u maleynaa meelahan amal waa meelaha oo khayrka laga qaato
qofkana uu darajo uu ku samaysto hal qof ayaa dhisi karaa waxaanoo dhan dadka macnaha amisano dadka haddii ilaahay waxaan rabnaa in naloo kaalmeeyo oo si wanaagsan marka masaajidkaas kulley meeshii masaajid oo laga dhiso rasuulku wuxuu sheegay macnaha inuu milki dambe aan gelaynin oo masaajid haddii mar laga taago dambe macnaha ilaa yowmalqiyaama inay ahaani masaajidka haddii hataa laga guuro inay masaajidkaas ahaanayso oo weligeed aysaa ahaani insha allahu marka kheyrka meel lagu bixiyaa la rabaa meel lagu bixisaana mal haddii la helo waxaabaa in loo degdego uma ku fiican wasaaricuu ilaa mawfirati min rabbikum macnaha dembadhaafka ilaahay waxaa layidhi u degdega oo gaara waxyaalaha lagu gaaran waxaan ayaa ka mid ah macnaha marka waxaan rabnaa meesha aan naloo dhiso sidii macalinkii iyo sheekhii u horreeyay ay sheegeen meesha ardaydii iyo hadda waxaa dhisan 2 qol muslimiintaa dhisay marka haddana waqti markii la joogay oo hadda abbaaran joognaa marka meelaha inaan wax kala helnaa isku daynay markii noo suurtageli waysay waxaan qalbaynayn in loo bandhigo muslimiinta in meesha joogaan inaan u bandhigno maana insha Allah marka culimada kale aan ku wareejinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ruur oo masaakiina wax lagu barayaa madrasada dadka dhalin aruurtaas dad hadda dhaqaale haysta oo masaajidkaas dhisi kare ma aha madrasada oo ilmaha u dhisin dad muslimiina u dhisi marka islaamku waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaas ilmihii ay ku caawiyaan khayr allah siiya masaajid ninkii dhisa jannada ayaa ilaahay masaajid ugu dhisaya adduunka ninkii masaajid ku dhisa marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaas ka qayb qaataan dal iyo dibid meeshii ay joogaan khayr allah idin siiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu